الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahad leh mudaba waxaynu wadnay hawl si doorashadu hirgaleed inay xisbiyadu ku heshiyaan hal qodob oo ay xisbiyadu ka doodayeen oo ahaa soo jeedin ka timid xisbiyada mucaaradka oo ahayd in laba la kordhiyo komishanka waxaanu ku soo gabagabeynay in xubno baarlamaanka oo koobitoonay iyagu ay mooshin geeyaan golaha baarlamaanka wakiilada tara baarlamaanku haddii uu ansixiyana la qaato haddii ay diidaanna doorashada laga hirgeliyo oo aan loo xanibnaanin in laba hal la kordhiyo hal la baado waxaa kaloo lagu heshiiyey haddii ay baarlamaanka arrintaas ka hirgeli weydo in baarlamaanka cusuba la doortaa markaaba la horgeeyo in la kordhiyo qaab dhismeedkii komishanka iyo hawlihiisi wax looga bedelaya alxamdulilah waa uga mahadnaqay xisbiyada mucaaradka inay taa aqbaleen inay arrintaas soo fudeydiyeen aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaan codsanayaa dhammaan qaranka cidda ay ka khusaysaa intay ka khusaysaa inay soo fudaydiso si doorasho loo heli lahaa hay-adaha dowladda ee ku shaqada leh hawshaa dhinacyo badan iyagana waxaan farayaa in ay fududeeyaan oo ay xoogga saaraan si doorashada wakhtigeeda ugu qabsoomi lahayd wakhtigu waa yaryahay laakiin wixii ra ku tashada rabbina gargaaro waa la helaa waa la qaban karaa waan qabaa haddaynu aada dadaallo waa waxaynu ka midoobin waxaa intaa dheer arrinta maanta ka taagan dhibaatadan ka taagan ee shaqaaqadan ka taagan sanaag way dhammaan doontaan siaan hore u sheegay haddii aan la idhaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa wax waliba waktigu leeyahy waxaa la idhahdaa midhaha geedku markay bislaadaan iyagaa soo dhaca iyadoo cidina soo goyn dadkana nabadda wakti baa la siiyaa qof walba waa la dhegeystaa wakti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin taladu marka dambe iyadoo fiicanoo bislaata bay soo go-i doontaa waanay dhowdahay haddii aan la idhaahdo wax warwaraho weyn oo halkaa ka jiraa ma jiro waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arrintaa nabadda ay ku dhammaato nagu xukumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oonu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xagga iyaga dulqaad iyo dee maaragtay qaboojin iyo gacan walaaltinimo ah inaanu u fidino u dulqaadano annagu inta badan dabcino wixayna dhaana dulqaadano keliya wixii sharciga aan la dhaafi karayn mooyaane waxayna tahay waa arrin fudud meel gaamo ayay maraysaa meel dhow iyaduna insha allahu way noo dhammaan doontaa saaka waxoogay marbay xiisadu kacday ilaahay mahaddii way degan tahay imaka saacadda alfin arrintu way degan tahay odayaashii taliyaashii ciidamada barasaabkii halkii bay ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadii waa hadalka taasina waa ilaahay mahadi waxaan u mahadnaqayaa ambasadarka EU-da oo muddaba iminka arrintaa inagu dhex jiray oo aada iyo aada u muujiyey inay noo qabato doorashadu inuu gacan weyn ka geysto isagoo matalaya yurub oo dhan dowladaha midowga yurub ku jiro o dhan aad baan uga mahadnaqaynaa xilkaas ka saareen isaga shaksi ahaana adkaysigu u yeeshay maalmahan inuu nala joogo oo ilaa saacaddaa nala fadhiyo oo uu waanaya saaxiibtinimo doorashadii ha dhacdo doorashadii halaisu jejido aad iyo aad ayaan u mahadnaqaya xisbiyada mucaaradkana aad iyo aad baan u mahadnaqayaa aad baa u mahadsantihin waayo haddaydaan idinku wax badan dabcin ama aydaan ka qayb qaadan inaynu wax dejino aad iyo aad baan u mahadnaqayaa baynaan gaadhneen go-aankaa wanaagsan doorashada ha dhacdo labada guddoomiyena aad baan ugu sii mahadnaqayaa dee cirana waxaa leehay cabdiraxmaan haddaad beri hore noo iman lahayd beri hore ducayn lahayd intaa waktigaada yar qaaday aad iyo aad waa mahadsan wardaa timid aad iyo aad waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu